سوى فقص الغضب فقول يتوان قول لحد يفتح حضيني عن سوق بالليل إن هذه السنة سيد علي معلم داود لو حكم وديل سوق شاء كاسوا قصاص مرحوم مدلول عبد العزيز إن هنتديسا وليه هي وكتجي أما وليه هي لو حكمه شرعي أو كفر مقدور عدة عصنة شرعي شيء جاي عادي دعوة دوجة دعوة عقاب هو جاي بس عصي جاي شيء المير هو وكيل باكنا يعني هلا كم من القصير قرأت فوجد مية وحاول محمد دورت إذا كشر رحيي ورقد داسي وحي خصيصي حالة عافمات إنك عسبتها كسال الله بجاي هسه يشقريك واحد عافتي ورقد دمشقة أو عدونا يخترقوا دمشقة هذا يسوق في مدمتي والمحكمة اللي لو دعنا قررنا اللي فيه أرجع صعبة أنت هذا كبحه دفاع يسوق فيه قررنا وعن ربعنا إن الله دعوه أو سكوبا أنا أقول الله يعني سوق فيه من البدوي دعوه هو الوحوية oo dhacdooyinkaasoo ah dhacdooyin ku tusinaya ama qaraa'in ah oo ku tusinaya in eedeysanuhu uu galay falkaas si kasana uu galay natiijada dhimashaduna ay ka dhalatay falkaas qodobka koowaad waxa weeye gacanta uu dhaawaca ku leeyahay waa gacanta bidixda ah waxaana ay ku tusinaysaa eedeysanuhu inuu u isticmaalayay gabaasiinka uu ku shubaayay marxuumadda iyo sigaarka ama letarka oo ku daarayay inuu isticmaalay gacanta midigta ah markii ay yani ay damacday inay isbadbaadisana uu ku riixay gacanta bidixda ah sidoo kale dhaawac yar baa wuxuu ka yaalay farta hore ee gacanta midigta ah dhaawacaasina wuxuu ku tusinayaa markii uu ku qabanayay dabka shidaalkana ku shubaayay inuu soo gaaray dabka cirifkiisii ama dabkii uu gacanta ka soo gaaray uu ku daarayay qodobka labaad aan rabo maxkamadda inaan la wadaago waxa weeye qolka uu gubay kuna gubay marxuumadda qolka uu marxuumadda ku gubay eedeysanuhu inuusan ahayn qol qalabka jiifka ama guriga loogu talagalay qayb ka mid ay yaaleen waxaa yaalay armaajo yar iyo sariir yar oo ay iska lahayd gabadha lagu magacaabo farxiyo oo ay dhashay marxuumadda waxa oo laabuwaabtii ay wax ku baranaysay farxiyo yari waa gabadha curadda ah oo 10 jirka ah oo maxkamadda horteeda aan keenay ama timid sidoo kale mudane gudoomiye maxkamadda sharafta leh waxa ka dhex muuqda sawirada aan soo gudbinay qolka marxuumadda lagu gubay buwaabtii farxiyo boosadeedii ayaa ka dhex muuqda alaabta jiifka iyo fadhigu waxay gaar u yihiin ay ku xiran yihiin qaybta gudaha ah ee qolka fadhiga iyo qolka jiifka iyo suuliga isku xiran halkaas waxa jira qaybtii ma ahayd jiifka ahayd sidoo kale eedeysanuhu waxa uu sheegay oo iyaduna qaraa'inta ka mid ah ama waxyaabaha wax caddeynaya ka mid ah inuu galay qolka jiifka ah asagoo soo gubay sida uu sheegay weeye qolkii yaraa asagoo soo gubay inuu galay qolkii jiifka ah daqiiqadna inuu ku jiray daqiiqad kadibna uu ka soo baxay isla markaana uusan soo gubin qolkaas way uu gubi waayey haddii ay uu sheegayo eedeysanuhu hadduuba qolkan soo gubay qolkanna uu galay daqiiqadna uu ku jiray isla markaana uu ka soo baxay mudane gudoomiye maxkamadda sharafta leh taasna waxa weeye waa dhacdo muujinaysa inuu falkan ku talagalay eedeysanuhu qodobka kale aan soo gudbinayo waxa weeye gaarigiisa marka uu keeno eedeysanuhu xaafadda uu yimaado gurigiisu geysan jiray gudaha u gelin jiray gajeelaha mararka qaarkoodna wuxuu dhigan jiray geerishka maalinkaa wuxuu dhigtay geerishka hibradiisa afka gaarigana wuxuu u jeeday waddada jidcaddaa ah ee ku dhacda jidka weyn ee laamiga ah taasina waxay daliil u tahay inuu rabay inuusan habeenkaa guriga u hooyan ee uu falkaa geysto kadibna uu iska baxsado eedeysanuhu inay tahay ku talagal eedeysanuhu dabka wuxuu ka soo qaatay sida ay noo sheegeen maqaantiyaashu maxkamaddan ay ka hor sheegeen qaarkood wiil dhegoo leh oo joogay geerashka
xilligaas muddo kadibna eedaysanuhu wuxuu qaaday tallaabooyinkaas maxkamadda horteeda laga caddeeyey oo aynu soo qaato baasinga inuu gudaha galo inuu soo daaro inuu kusoo gubo gabadha inuu saas sameeyo waxa uu sheegay eedaysanuhu inuu soo badbaadiyey carruurtana uu qaarkood soo guray isaga arrintaasi waxba kama jiraan bal ganjeelaha weyna baa kusoo riixay shabaq ka horreeya gurigana dushuu kaga xiray labada dhalinyarada ay u dhacday guriga haddii uu gurigu furan yahay ma iyagaa u dhici lahaa uma dhaceen albaabka ka geli lahayn xataa haddii albaabka furan yahay taasina waxay kutusinaysaa inuu rabo inaan la ogaanba ay maamada iyo lixda ciyaalna ay meesha ku gubtaan sidaasna waxa weeye hadda lasu weydiiyo oo loo yiraahdo korontaa ku qaraxday ama si kalaas ku noqday marxuumadda allah u naxariisto markhaantiyaasha mid kamida wuxuu sheegay inay ku calaacalaysay waryaa muslimoy walaalow haygubin iyo kelmada shahaado ah oo markaas ay soo jeedinaysay wuxuuna guddoomiyey maxkamadda sharafta leh eedaysanada marxuumadda markay soo baxaysay ama ay guriga ka soo baxday ayadoo dalaadhacaysa ayay ku dhacday guriga kasoo horjeeda banaankiisa jirkeeduna waa gogo-ay bal qiiq baa ka kacay waxa ka kacaya qiiq waxaanu haynaa sawirkaas maana soo gudbin isagoo daabacan baa soo gudbina laakiin haddii isagoo sooftiya la fiirsho wuxuu abuurayaa jawi kaleeto ka baxsan waxaw in la fiiriyo ama bini-aantinimada waxa uu qofkii qalbi jilicsan ma fiirin karo sidaa daraaddeed waan soo gudbin doonaa haddii laha yidhaahdo isla 119 soo gudbinayna haddii alfawda laga aqbasho wey mudana guddoomiye maxkamadda sharafta leh eedaysanuhu sidaan hore u sheegay ayadana aan taabanayo ma fakadeen haddii uu falkani uga dhacay si aan ku talagal ahayn taasina waxay muujinaysaa fakashadiisu xataa ma ahayn fakasho ku siman degmada uu degan yahay waxay ahayd mid ka baxsan ilaa uu u gudbay gobol kale ilaa juhdi badan la geliyana uu doonayay inuu uga fakado waddanka dibaddiisa waxaan la qiyaasi karin dhaawaca guud oo soo gaaray saaxiibadeed iyo dadkii shaqo wadaagga ahaayeen mudana guddoomiye maxkamadda sharafta leh ilaa hadda waxay ku jirtaa talaagad lama geyn qabrigii lagu aasi lahaa taasoo ka tarjumaysa dhaawaca soo gaaray ehelka ugu dambeyntii mudana guddoomiye maxkamadda sharafta leh maadaama aan soo gudbinay caddaymo documenty iyo markhaantiyaal aan la qiyaasi karin oo ciidda ka badan oo dhinac walba taabanaya arkay maqlay dareemay intaba waxaan maxkamadda sharafta leh aan ka codsanayaa anoo ku matalaya dacwaddan xafiiska xeeraryaha guud ee qaranka anigoo dacwaddan ku matalaya xafiiska xeeraryaha guud ee qaranka in ay maxkamaddu ku qanacdo isla markaana ay si waafaqsan qodobka 110 caddaymihii aan soo gudbinay in eedaysane sayid cali macalin daawuud lagu xukumo dil toogasho ah kaasoo ah qisaasta marxuumad luul cabdicasiis in hantidiisa uu leeyahay ee uu ka tagayo ama uu leeyahay lagu xukumo looga xukumo cimaad cabdirasaaq maxamed oo ah wiilka yar ee dhaawac ah magdhow iyadoo loogu xaq sooraayo ama loogu qiimeynayo sharciga ugu fid magdhow cidda codsanaysa sharcigaa sheegaya adiga dacwad uga dacwad ciqaab ugaya marka codsigaaga sheego ilmo yar weeye wakiil baan ka nahay okay maxkamad waa maasan tahay mudana guddoomiye waxaan codsanaynaa in eedaysanaha lagu qaado qisaasta marxuumad luul cabdicasiis oo lagu xukumo dil toogasho maxkamad waa maasan tahay sidoo kale waxaan codsanaynaa in aabbaha oo jooga asagana la waraysto wixii xuquuqa waa gabagabaysay magalka waa adiga ka dhamaado internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah